hamiga adduunyo iyo taatikadiis iyo hubkiisana lagama xigo isagana inay ku dadaalaan oo ay samaystaan nooc walba si ay cadowgooda ay isaga celiyaan marka ay yihiin kuwa mustadcafiina oo aan lahayn awood ay cadowgooda iskaga celiyaan caqliga iyo sharciguba waxay sheegayaan in waxa ay ku mashquulayaan uu noqdo diyaar garow waxaas wax jiro ma laano nabigeena sallallahu alayhi wasallam siiradiisa markaan ku noqon markuu quraysh la dagaalamay nabigii quraysh misku awood bay ahay maya markay quraysh badar ay ku yimaadeen kun iyo ka badan iyo gaadiid fara badan nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam 300 iyo dhowr iyo 10 buu watay gaadiid yarna wuu watay mawaasiinta marka la fiiriyo maadiga marka lagu qiyaaso mayna dagaalami karin ilaahina quraanka waa ka inoo sheegay kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah masalada labaad waxa weeye dagaalku marna waa talab marna waa dafci mar adaa cadowga raadsanay marna uu kugu qasbayo gurigaagii iyo deegaankaagii baa lagugu yimid haddii gurigaagii iyo deegaanka lagugu yimid khiyaar ma lihid ruuxa sidaa leh waxaa ka maqan waaqica fahankiisa falastiiniyiintu hadday dagaalamaan iyo haddaynan dagaalaminba lama daynayo غزة iska daa daanta galbeed oo dafa algarbiya la yidhaahdo oo waxaan dowladda ay ugu sheegaan ay ka jirto la shaqayso Israa'iil kuwa joogay intaan hadda dagaalkani bilaabanin bishii ka horeysay 300 baa laga dilay reer dumar cid walba leh 300 marka waa iska dil Israa'iil marka ama had dagaalameen ama yeena dagaalameen inay dhulkoodana qaadato iyagana baabiiso ama qaxisaba qasaba Soomaa marka nin khiyaar ku duulay ma ruuxay nafi hayso ya bisadaba hadaad erido kula dagaalamay marka dambe Soomaa bini aadan ilaahay karaameeyo dhulkiisii oo la gubaysanayo laga soo qaatay oo Faristiinteeda Yahuud qaadatay oo la soo dejiyo haddana waxa weeye intii yartay ka si carab صحما أما دمر يعرب بك أحد قالمين نبي محمد صلى الله عليه وسلم مركي أحزابتي إصبحي ستدي أي سود وشو مقالة المدينة أي سود الدجين صحابة وحكولات لي ما يوحي هيد دجال في أحد نبي وحكولات لي صلى الله عليه وسلم عن مقالة نحيد قد قالنا صوما رجل اللي يرى بطلا والدجال كي بدأ كم قناه ayaa yiri ma ahe magaalada dhexdeeda ku dagaalami maynay banaanka inoo saar markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam taladoodii qaatay oo banaanka loo baxay waliba nabigu wuxuu ku riyooday intaan la bixin wuxuu ku riyooday kama fi sahih al-bukhari wa ghayrihi wuxuu ku riyooday isagoo oo dhufays ku jira iyo la qalayo wuxuu ku fasiray dhufaysku inay tahay magaalada Madiina gudaheeda inuu ku dagaalamo لوضع لقلقليانا وحو كفسري صحابتي لا لاي marka magaalada gudaheeda maxaa loogu dagaalamay caruur iyo dumar baa joogay nabi maxamed baa damcay inuu ku dagaalamo magaalada gudaheeda hadii lagu dagaalami lahaana caruur iyo dumar waxbay ku noqon lahaayeen sidaas daraadeed sax ma aha dadka walaalaheena ee la baabi'inayo yahuudu masalada ilaad fahantaan u baahan baa waxay tahay يهود ومصعد فلسطين كلي ومصعد قرشها وحويان وحلي دادو إسرائيل الكبرى قرشها واحد جسن دولة إسرائيل وين لي دادو وحي كسو بلابة فلسطين وحي لقيسا سوريا وحي لقيسا أردن وحي لقيسا لبنان وحي لقيسا عراق ويصوص حنيسا وحي السعودان مدينة ماشي أي كدق جيران وخيبر يحافظي مقالة مدينة أي كدق جيران نبي محمد واي لقى صاري سوى قرن الإنسان والله دقال هل كاسا السعودة مركب فلسطينيين تسوى عرارة عراقيين ولا عرارة
سوريان وعرارة حاجة تتكيني سنة حاجة له عربي ما له عربي بجرد انت اللي ادلينا إلهي وحن رجينا الشهادة والشهادة صوما إلهينا أدومديسا مركي دقالميان حكمة ويمين الشهادة كسما يستقار شهيدا ويتخذ منكم شهداء جهادك حكم كيسا كمدا إنه إلهي قار كمدا الشهادة كدكتور صوما لكن وحوي انت تبرت هذا وين اسكحليا عدي قرب استاي كرتنا وين قرب استاغت عد waxay ku garab istaagtaan haynin ugu yaraan waa in loo duceeyo laakiin dadka walaalaheena in dhabarka laga jabiyo oo ama dagaalkooda la qashqashaado ama sharciyada laga qaado ayagana duruuftaasi ay haysato waa khudlaan waay mana haboona arinta noocaas oo kala ruux muuminana kuma haboona nin culimo iska badaay wallahu a'lam